Assalaamu calaykum. Barnaamijkeenan maanta waxaynu ka soo xigan doonaa buugga Maxaan u dooranay dariiqa faqriga ee uu qoray Ismaaciil Tukaale. Waxa aanu kaga warramayaa 50 sababood oo keena saboolnimada iyo inay bulsha dib u dhacdo oo haba yaraatee aanay wax horumar ah samaynin. Waxa aanaynu ka soo qaadan doonaa qaar ka mid ah sababahaas. Fahan la'aanta qaanuunka nolosha waa qaanuunka la yidhaahdo sabab iyo natiijo. Qaanuunkan macnihiisu waa marka sabab la helo ayaa natiijo la helaa. Sabab la'aanse waxba kuma yimaadaan. Ilaahayna arrintaas qur-aanka waa inoogu sheegay. Qaala Allahu tacaalaa wajacalnaa kulla shayin sababa. Shay kastaba dhiciddiisa sabab ayaanu yeelnay. Dadku waxa ay qalad ka aaminsan yihiin qadarka. Marka uu wax dhaco iyagoo aan eegin sababta keentay ayaa qadarka Ilaahay ay ku sababeeyaan. Rumaynta qadarku waa mid ka mid ah arkaanta iimaanka, waana waajib in la rumeeyaa. Ninka qadarka beeniyana waa gaal, laakiin waxaa muhiim ah in qadarka Ilaahay loo rumeeyo si sax ah. Tusaale ahaan, ruux baa si ula kaca gaadhi ordaya hortiisa isugu tuuray, gaadhigiina waa uu jiidhay. Mid kale ayaa shaqadiisii soo xaadiri waayey oo iska seexday, kadibna sidaas awgeed shaqadii waa laga eriyey iyo wixii la mid ah. Bal ka waran haddii dadkaasi ay yidhaahdaan Ilaahay baa noo qadaray, ma ka aqbali lahayd? Ilaahay Maryam binu Cimraan iyadoo foolanaysa ayaa la amray inay jirridda geedka timirta ah ruuxdo si midhuhu uga soo daataan, isagoo Ilaahay awoodaya inuu sabab la'aan u soo daadiyo. Sidoo kale Haajira oo ahayd Nebi Ismaaciil hooyadii, markii Nebi Ibraahim cidlada kaga tegey ee iyada iyo ilmihii harraad xun ku habsaday, waxa ay oroday 7 jeer inta u dhaxaysa Safa iyo Marwa. Kadib ayaa uu biyihii idanka Ilaahay ugu soo burqadeen. Ilaahay sabab la'aan waa uu karayay inuu biyaha u soo burqiyo, laakiin waxaa la doonayay inay hortayadu awooddeeda isticmaasho oo ay sabab la timaado. Qiso kale oo caddaynaysa in fahankaasi qaldan yahay ayaa ah 2 dhalinyaro ah ayaa doodi dhex martay. Midkood waxa uu ku doodayaa in haddii uu shaqeeyo iyo haddii kaleba wixii uu Ilaahay u qoray inuu helayo. Kan kalena waxa uu ku doodayaa in haddii uu sabab la iman waayo aanu waxba helaynin. Kii ku doodayay inuu wixii uu Ilaahay u qoray sabab la'aan uu mar kastaba helayo ayaa doodii ku adkaaday, waayo waxa uu saaxiibkii u xujaystay qadarka Alle, kaasoo ay diidistiisu gaalnimo keenayso. Wiilkii ayaa isagoo ay arrintaasi ka dhaadhici laadahay, laakiinse ka baqaya in haddii uu sidaa rumayn waayo uu ku gaaloobo, ayaa go'aan ku qaatay bal inuu arrintaa tijaabiyo inay suurtagal tahay iyo in kale. Masaajidka ayaa uu tegey salaadii Jumcahana waa uu ku tukaday. Markii laga baxay salaadii duhur ee dadkii nin walba reerkiisii u qada doontay, isagu masaajidka ayaa uu ku hadhay oo waxa uu galay qol yar oo ka mid a qolalka masaajidka, isagoo ku sugaya in arsaaqadii Alle u qoray samada uga soo dhacdo. Waxaa jira nin maalqabeen ah oo masaajidka la jaar ahaa. Waxaa kale oo jiray xer masaakiina oo masaajidka wax ku barta, kuwaasoo ninka maalqabeenka ah uu maalin walba qado u keeno. Sidii caadadu ahayd qadadii buu keenay, laakiin saaxiibkeen qolkii buu isaga jiraa oo ma soo bixin. Xertii qadadii waa iska cunaan. Maalintii oo dhanna wiilkii sidii ayaa uu qatanaa oo baad iyo biyo midna kama degin. Maalintii labaad markii salaadii duhur laga baxay ee nin walba xaafadiisii u qada tegey, keligii baa masaajidka ku soo hadhay. Ninkii taajirka ah ayaa sidii caadadu ahayd cuntadii keenay, laakiin odaygii masaajidka mas-uulka ka ahaa ayaa yidhi cuntada maanta iska celi, waayo xertii masaajidka joogi jirtay maanta meel kale ayaa laga casuumayey. Wiilkii yara oo qolka ku jira waa uu maqlayaa hadalka. 2 maalmoodna waa uu qatan yahay. Arrintu meel adag baa ay maraysaa imaka. Gaajo awgeed ayaa bogga iyo beerku isku dhegeen miskiinka. Markuu arkay in meesha cunto la sido haddana la rabo in la celiyo, ayaa uu isaan kari waayey. Markaasuu yidhi si loo maqlo. Odaygii baa meeshii shanqar ka maqlay, kadibna waa uu soo fiiriyey. Kadibna markii uu soo fiiriyey ayaa uu arkay inuu meesha nin ku jiro. Markaas ayaa uu ninkii taajirka ah la hadlay oo uu ku yidhi waar cuntada soo celi. Mid xertii ka mid ah ayaa meesha ux ka yidhiye. Wiilkii yaraa cuntadii baa loo soo dhigay. Markaasuu ileen waa nin 2 maalmood qatanaaye si waaliya u cunay, isaga oo leh waxa ay yidhaahdeen sabab la'aan ayaa wax lagu helaa. Wallaahi sabab ayaa arsaaqada lagu helaa haba yaraatee oo ha ahaatee uxe. Waxa uu u jeedaa haddii aanan shanqadhaa sameeyaan wax cunto ama heleen, laakiin waxaa sabab u noqotay inaan cuntada helo waa shanqadhii aan sameeyey. Dr. Ibraahim Alfiqi waxa uu yidhi dadka guusha gaadhay waa run oo waa ay nasiib badan yihiin, laakiin nasiibku waa mid ay gacantooda ku samaysteen.
sababta labaadna waxay tahay waxa aad ka fikirtaa caqabadaha oo keliyaata marnaba kama fikirtid midhaha dambe. waxaana hore loo yidhi dadka guulaystayaasha waxa u muuqda midhaha, dadka guuldarraystayna waxa u muuqda caqabadaha iyo mashaakilka. dadka guulaystayaasha waxa ay ku kalsoon yihiin awooddooda, waxa ay ku kalsoon yihiin hal-abuurnimadooda, waxa ay diyaar u yihiin inay khatarta u badheedhaan, maxaa yeelay waxa ay aaminsan yihiin odhaahda tidhaahda the higher the reward, the higher the risk. mar kastoo khatartu sarrayso waxaa sarreeya abaalgudka. dadka hodanka waxay rumaysan yihiin xataa haddii ay khasaaraan inay mar labaad lacagtaa dib u samayn karaan, laakiinse khatarta ay gelayaan waa mid daraasa ku dhisan oo laga fiirsaday, laguna sameeyey baadhis iyo shaandhayn ha u qaadan inay khatar qaadashadu tahay mid indhala-aan lagu gelayo. bal imakana haan eegno dadka faqiirka ah. waxa ay fishaan inay guuldarraysanayaan, naftooda iyo awooddoodana kuma kalsoona. waxay aaminsan yihiin haddii mashruucani shaqayn waayo inay musiibo dhacayso, maxaa yeelay waxay eegayaan oo keliyaata dhinaca mashaakilka, diyaaru ma aha inay khatarta u badheedhaan. haddii aad tahay mid sidan ku sifaysan, ogow inaad tahay mid xorriyaddiisa ku doortay dariiqa faqriga. wassalaamu calaykum.